madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada muddo kooban kadib waxaan dareenkooda wax ka weydiinay wasiirada wasaaradaha shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Hinda Jaamac Xirsi wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumin Seed waxay uga mahad celiyeen magacaabista uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu magacaabay wasaaradahaasi aniga rag badan oo aad u qiimo badanba runtii xilka maanta laga magacaabay runtii marka hore waan aad baan runtii ugu faraxsanahay waa mas'uuliyad weyn mas'uuliyad qaran ilaahay wax ka rajeenayaa runtii inaan xilkaas wanaagsan oo u gudan doono insha Allah taala ilaahayna ay dhabiirin doono taa macnaheedu runtii maaha golaha wasiirada hadda la magacaabay waxa jira rag badan oo qiimo leh iyaga laftoodu oo runtii shaqooyin badan soo qabtay laakiin Soomaaliland mar walba wax weyn cidii oo madaxweynaha marka la doortay xilka u garto ayaa xilka magacaabaya inta kalena runtii way la shaqeyn doontaa marka uma eka ama maaha inteeda la magacaabay inaanu nahay dad kii ugu wanaagsan Soomaaliland maniin laakiin waa dad madaxweynuhu u gartay inay maanta xilka wasaaradaha runtii qaban doonaan waan runtii ilaahay waxaan rajeenaa in ilaahay xilka noo dhib yareeyo madaxweynuhuna runtii uu ku mahadsan yahay haduu maanta noo magacaabay golihiisa wasiirada ilaahay waxaan rajeenayaa inaan shaqada si daacada oo wanaagsan runtii uga soo bixi doono TV-ga qaranka Soomaaliland haddaan ka waramo ama aan ka jawaabo su'aashaada runtii dareenkaygu waa dareen wadaniyadeed oo runtii aad u qiimo badan anigoo aad ugu faraxsan madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixi Cabdi xilka uu ii magacaabay run ahaantii waanan uga mahad celinayaa in badan aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca haweenka qaranka Soomaaliland ku dhaqan intaba sida qiimaha leh ee uu fayska koobaad ee dawladdiisa haween ahaan uu nooga qaybgeliyay aad iyo aad baan uga mahadnaqaya runtii waa su'aal fiican waxaan oran karaa waxay u sameynaysaa dareen runtii qiimo badan leh oo qadarin leh taasoo ay tusayso haweenka in ay yihiin shay ku culus siyaasadda Soomaaliland ama gaar ahaan xukuumadda maanta xisbiga kulmiye ka dhalatay ee uu hogaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi inay yihiin haweenku wax aanu marnaba ilaawi karin wixii ay u qabteen saas baan u arkaa qiimo badanna agtayada way ka sameynaysaa taas sidoo kale waxa dareenkooda ka hadlay hambaliyana u diray golaha wasiirada xukuumadda cusub ee madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Awdar Mas'al Cabdiqaadir gudoomiyaha xisbiga kulmiye dalka Australia ayaa isaguna dareenkiisa ka dhiibtay golaha wasiirada xukuumadda uu hogaamiyo mudane Muuse Biixi Cabdi sidoo kale Daawud Abiib oo kamid ah dadka reer Soomaaliland ee ku nool Hargeysa ayaa isaguna dareenkiisa ka dhiibtay aragtida golaha wasiirada xukuumadda Muuse Biixi Cabdi marka hore waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Mujaahid Muuse Biixi Cabdi oo maanta doorkii soo saaray groupkii wasiirada golaha wasiirada maanta ku dhawaaqay hambalyo baan leeyahay madaxweynaha waxaan mar labaad hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan acyaanta iyo ragga iyo dumarka ku soo baxay liiska golaha wasiirada ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dhammaantood hambalyo baan leeyahay hambalyo guud baan u dirayaa waxaan si gaar ah ugu hambalyo ugu diraya ilaahayna uga baryayaa saaxiibkay Axmed Muumin Seed oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu gartay inuu noqdo wasiirka beeraha ayaa waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa madaxweynaha mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa waxa kaloon halkan hambalyo uga dirayaa saaxiibkay Axmed Muumin Seed oo aan soo wada shaqeynay oo ilaa iyo wadanan ka soo wada shaqeynay ilaa iyo toosintii ka soo wada shaqeynay markii dambana aanu kulmiyo wada galay oo maanta xilkaas loo magacaabay wasiirnimada wasiirka beeraha aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa filaynay in dadkii wax qabtay ama islaahay waxbay qaban karaan oo dalkan horumar bay gaarsiin karaan islaahay dadkii uu magacaabay una asiibay siiba gudoomiyihii Axmed Muumin Seed oo in hadda loo magacaabay wasiirka beeraha oo islaahay waxbuu ka qaban karaa waayo qof walba la magacaabaaba wuxuu shaqada gaarsiin karaa ama aqoontiisu tahay halka uu aqoontiisu gaarsan tahay waana ku kalsoonahay wasiir Axmed Muumin Seed
inuu sidaasoo inuu horumar wanaagsan gaarsiin doono dhammaan wasiirada kalena magacaabana waan ku faraxsanahay وحسن فرح كمان عبد عمر جبريل تلفزيون قرن كسوماليلاند هرقيسة